waxaan baliyeenayaa madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam iyo maamulka uu soo dhisay ee sharafta leh oo aad ugu faraxsanahay hadaan nahay magaalada Reedow odayaal iyo dhalinyaro iyo hooyooyin iyo ilaa dumar gabdho yar inta ka dhaxaysa dhammaan maamulka dawladda Jubbaland waan u mahadcelinaynaa dhammaan madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Allah uu guuleeyay dawladda uu dhisay ee sharafta leh yaan aad ugu hambalyeynayna annaga oo ay wasiirro badan qanciyeen bismillah waxaan maanta halkan hambalyo qaali uga direynaa xukuumadda cusub ee yeelatay dawlad goboleedka Jubbaland taas oo ahayd tii laga warsugay muddo dheer oo ay ka warsugayeen dadka Jubbaland waxaan isleenahay waa xukuumad wax ka bedeli doonta dawlad goboleedka Jubbaland marka aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa xukuumadda cusub ee lagu dhawaaqay saacadii la soo dhaafay laga dhawaaqay magaalada Kismaayo caasimadda ku meel gaarka ee dawlad goboleedka Jubbaland marka waxaan leenahay hambalyo soo dhawaada mudane wasiir dhamaantiin محمد عبد أحمد وكم عدير دخرة وحنو همبليينيا دولة iyo maamulka Jubbaland gaar ahaan Axmed Maxamed Islaam madaxweynaha Jubbaland iyo golaha wasiirada uu soo dhisay ayaan aad ugu hambalyeynaya waxaan u hambalyeynaya wasiirada la dhisay in ay si sharaf leh oo cadaalad leh oo islaamnimo leh ay ummadooda u maamulaan si cadaaladna uga soo baxaan magacayguna yahay Maxamed Tuba Sahal waxaan hambalyeynayaa oo halkan salaan uga direynaa maamulka Jubbaland ee cusub golaha fulinta madaxweynayaasha waan hambalyo u direynaa degmada Doobley dadka jooga dhamaantii waxay u hambalyeynayaan anigoo wakiil ka ah labada madaxweyne ku xigeen iyo golaha wasiirada gaar ahaan wasiirada aniga saaxiibadayda aad baan ugu hambalyeynaya